الحمد لله ثم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى أيها المهدنين إخواني في الله، waxaan la yaabay maanta walaalayaal xadiid aan akhrinayay maanta waa isoo jiitay aan dhageysanay xadiidka walaalayaal. nabigu wuxuu leeyahay sallallahu alayhi wasallam, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yawmihi faka'annama hizat lahu ad-dunya. ya Allah ya Allah, oo macnaheedu uu yahay nabigu wuxuu leeyahay waa xadiid jaamicul kalima weeyaan. nabigeena kelimad yar ayuu ku hadlay oo koobaysa wax walba macnaheeda uu weyn yahay walaalayaal. saddex shay weeyaan kaliya ninkii haysta, nabigu wuxuu yiri adduunyada waa qani, ninkaas caalamka oo dhan isaga hoostiisa la soo dhigay ayay la mid tahay, wax ka maqan malaha. wallahi wuxuu leeyahay nabiga sallallahu alayhi wasallam, qofkaas wax ka maqan haw yaraade malaha. ninka ugu taajirsan weeyaan ninkaas. dadka maanta qofka ugu taajirsan dadka ma yaqaanaan. rasuulkeena noo sheegay ninka dadka ugu taajirsan muxuu leeyahay nabiga sallallahu alayhi wasallam, man asbaha minkum aminan fi sirbihi, ninkii waa bariistay isagoo amni qaba, in la dilo kama baqaayo, in la dhaca oo xoolihiisa la boobo kama baqaayo, in cirdigiisa iyo sharafkiisa iyo reerkiisa lagu xadgudbo kama cabsanayo. wuxuu soo toosi amnigu ku soo toosi. amnigu waxaa garan kara dadka dagaalada ay ragaadiyeen oo meelaha dagaalada ku soo barbaaray, dadkaasaa ka sheekeyn kara amni wuxuu yahay. ninkii waa bariista isagoo amni qaba ayuu leeyahay rasuulka sallallahu alayhi wasallam, caafimaadna qaba. waxaa garan kara caafimaadka, kuwa xanuunsan ayaa ka sheekeyn kara caafimaadka wuxuu yahay. ma garanaysid adiga ninkaagan caafimaadka qabow, gabadhaadan caafimaadka qabtay, ma garanaysid caafimaadka wuxuu yahay ilaa qofka inuu xanuunsan mooyaan. wallahi billahi qofka ma garanayo, wuxuu maleynayaa inaysan waxbaba ka maqneen, wuxuu maleynayaa wax kale uu ku mashquulsan yahay, uu raadinaya, uu u hanqaltaagaya. war caafimaadkan wax weyn weeyaan, wax weyn weeyaan. nabigu wuxuu leeyahay sallallahu alayhi wasallam, caafimaadna qaba, waaga kuu bariyay adigoo amni qaba, caafimaadna qabtid. midda saddexaad wuxuu leeyahay nabiga sallallahu alayhi wasallam, maalinkaasna haysta wixii uu ku quudan lahaa, quturyoonkiisana wuu haystaa maalinkaas. wixii uu cun lahaa maalinkaasna wuu haystaa. ma aha accountku wax ugu jiro, maaha waxbaa la save garay, ma aha maalinkaas kaliya haystaa. beri ma haysta ilaa in la gaaraya in kale lama ogso, maaha maalinkaasna haysta. faka'annama hizat lahu dunya, waaba isagoo waxbaba aysan ka maqanin ayuu leeyahay, adduunyada oo dhan gacanta loo geliyo ayuu nabiga sallallahu alayhi wasallam. taas ma naga daadegaysa maanta anaga? in yar ilaa man raxima rabbi, in yar oo ilaahay uu u naxariistay mooyaane dadka inta badan arrinkaas kama daadegaysa. saddexdan kaliya miyaa adduunyada lagu soo koobay kuleeyihin? war saddexdan wax u dhigma ma laha. rasuulkeena noo sheegay sallallahu alayhi wasallam, caafimaadaad qabtaa, maxaa kaa maqan? jir caafimaad qaba ayaa shaqeeya, mata mismaha. jirka hadduu caafimaad qabo wuu shaqeyn karaa. haddaad xanuunsatid ma shaqeyn kartid. amni haddaadan haysanin shaqo warkeeda iska dhaaf, fikir iyo murug ayaa ku dulaysa. maalinkaas wixii uu ku quudan lahaa haddii uu haystaay, wax ka maqan ma lahu yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam. nabigeena wuxuu ku duceysan jiray mataqaanaan walaalayaal, allahumma ajcal rizqa ala muhammadin quuta. ilaahiyow محمد isaga isku wada, محمد reerkiisa iyo ehelkiisa risqigooda iyo arsaaqdooda waxaad ka dhigtaa
quturyoonkaas maalinkaas waxaan beelan bes ilaahu nasi wax ka badan hana siinoo dhijri ramigan u fiirsa anagan maanta quturyoonka leh miyaan u filanba quturyoon iska dhaaf waxaan leen ilaahu malaayiin nasi ilaahayo 10 sano waxaan un lahay isi ilaahayo 1 milyan oo dollar isi subhanallah nabigan wuxuu leeyahay ilaahayo maalinkaas wixii aan quudan lahaa kaliya isi wax ka badan ha isin muxuu diidayaa nabiga sallallahu alayhi wasallam wax ka badan la si maxaa yeelay wuxuu ogsoon yahay adduunyada xaqiiqadeeda ayuu ogsoon yahay maanta waxa na ragaadiso ayada maha maxaa yeelay walaalayaal wax ka maqan horta ma laha haddaad ka shukrin waa saddexdan haddaad haysatid oo nabigu uu noo sheegay haddii aad haysatid alxamdulillah ilaahay u shukri haddaad ka shukrin sama qoom dhamaala ayuu ilaahay quraanka ku sheegay oo sidaas oo kale wax loo sii kadibna intay ku kufriyeen nicmadaas ay wax badan wax weyn intaysan u arkin wax yar ay u arkeen oo qiimo aan lahayn kadibna way ku kufreen way ku caasiyeen bedelkay shukrin lahayn ilaahay wuu ka qaaday subhanahu wa ta'ala wa daraba allah mathalan qaryatan كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف محيط سوته بما كانوا يصنعون إخواني في الله يعني وقوم مكي دقنايا أهل مكي أهايا إلهي مكان واتقانا ولا ليا وحبك ما بح دول بيريد معها وحكبح ملها وقول محي هذي ولا ليا أنا وحبك بحين أبارع ننكي أركي وحوليه دتكاس إيجا أرزاق ذا مكو مالكست عالمك وحي اللي قعون له أردنا مكلكينا يسمي الله سبحانه وتعالى عالمك أردن وحي اللي كيني أيام مكة لو كينا إيجا فدي جود الجو مركز إسكعونا يعني نعمة إلهي إسكنوجا محل ريمرك ورول كان رول وحبك بحاي ما هاني رول إذن كان إندينو كأركاية wax kasta qudaar kasta raashin kasta nicmo kasta oo adduunka dacaladeeda yaala agtooda yaala hadana bedelka ay shukr lahayn way ku kufriyeen fa adaaqaha allah libaas al-ju ilaahi wuxuu u gilay dharkii hadana ilaahi wuxuu kuloosi amni yusi magaalada madiina amni ay ahayd hareeraheeda oo dhan waa la isku laan jiray waxaana lagu xusmeen jiray dadka kacbada degan weeyaan dadkii sharafta badan weeyaan lama taaban jirin xoolahooda safarkooda lama taaban jirin hadana amnigaas markii hareerahooda waa la isku cunaa oo ibrahim iskasina markii amnigi ay garan waayeen nicmadii oo caalamka meel kasta loo keenay ay ku kufriyeen ilaahay wuxuu u gilay subhanahu wa ta'ala cabsi darkii cabsida ah iyo gaajada cabsideeda loo gilay sababtu maxay tahay bima kaanu yasnaun waxay sameeyeen darteed oo kufriga marka hadii saddexdan shay lagu sii waxba kaama maqan ilaahay u soo noqo ilaahay ku shukro subhanahu wa ta'ala wa walaalkiin inta ku kulmeena markala hada wa billahi tawfiq sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam